OnePlus taleefan ku qiimeysan in ka yar qiimaha waxtarka uu leeyahay. Taleefan loo arkayo in uu la tartami karo taleefanada S24 Ultra oo ku shaqeeya garaadka macmalka iyo iPhone 15 Pro Max. Taleefan dynamic ah oo aad jeclaan lahayd xilliganba kadib markaad muuqaalkan daawato inuu agtaada yaallo. Maxaan ku doorbidaa taleefanka OnePlus? Ma qiimahan ku doortaa, ma kaamiradan ku doortaa, ma maskaxda ama storage-kan ku doortaa, ma waxaan ku doortaa awoodda dibkaydsiga aan ku doortaa, ma waxaan ku doortaa water resistance-ga ama awoodda uu leeyahay inuu iska caawiyo biyaha oo aysan bagelinin wax biyo ah. Su'aalahaas iyo su'aalo kale ayaan kaga jawaabi doonaa muuqaalkeenan ee ku soo dhawow maanta muuqaal kale oo cusub iyo anigoo ah Engineer Cali Maamow. Halka aad naga daawanayso waa Engineer Cali Maamow. nagu soo bir haddaad asxaabta hore ka mid ahaydna sii faafi muuqaalka. Mahadsanid. Qiimaha lagu kala iibsanayo mobilkan waa qiimo in badan ka hooseeya qiimaha lagu kala iibsado mobilada S24 Ultra iyo sidoo kale iPhone 15 Pro Max. Qiimaha mobilkan waa $799 amaba $800 midaad tiraahdidba. Kaamirad ahaan mobilkan wuxuu la tartamayaa taleefankii aan horey uga soo sheekaynay ee S24 Ultra oo aan muuqaalkan kaga soo hadalnay oo macnaheedu tahay taleefankan in uu leeyahay kaamirada dambe awood dhan 100 megapixel. sidoo kale kaamirad ahaan wuxuu la tartamayaa taleefanka iPhone 15 Pro Max oo ah taleefanka ugu dambeeyay oo ay soo saartay shirkadda Apple. Resolution-ka ama muuqaalka uu duubayo kaamirada mobilkan waa QHD oo macnaheedu tahay muuqaal 4K ah. wuxuu leeyahay nooca kaamirada 360 degree oo macnaheedu tahay inuu angles kala duwan oo muuqaal ka duubi karo. Surface-ka ama oogada sare ee mobilkan waa mid aad u qurux badan. waa mid ka samaysan maadada titanium-ka oo lagu daray maadooyin kale. waa taleefan soo jiidasho leh dhinaca kaamirada, qolfoofta kore, soo jeedka, angleska iyo muuqaal ahaanba. Battery life-ka ama awoodda dibkaydsiga taleefankan in badan shirkadaha sameeya mobilada waxay waqti geliyaan ama ay horumarin ku sameeyaan qaybaha kala duwan ee mobilka sida kaamirada, balse batteriga maya. waa macquul inay ka baqayaan in uu control-ka ka baxo haddii ay siyaadiyaan awoodda dibkaydsiga iyo awoodda qaadashada jaajarka xilliga uu jaajar ku jiro. awoodda dibkaydsiga OnePlus waa 5400 mAh. sidoo kale wuxuu leeyahay awood ah 500 oo watt taas oo ka saacidaysa xilliga uu jaajar ku socdo in uu ku buuxsamo waqti ka yar 1 saac. waxaa ka sii daran wuxuu wataa jaajar leh awood dhan 100 watt kaas oo u suura gelinaysa wax ka yar 26 daqiiqo in uu full charger ku noqon karo. soo saarayaasha taleefankan ayaa sheegay in xitaa haddii la isticmaalo 4 sano kadib awoodda dibkaydsiga taleefankan uusan ka hoos mari doonin 4350 mAh. waxyaabaha la yaabka oo taleefankan leeyahay waxaa ka mid ah water resistance, iska caabinta biyaha. haddii aad dhala biyo ama haanta uu kaga dhaco biyaha waxba kama bedelayaan. haddii aalad oogada sare gudaha wax saameyn kuma yeelanayaan. 90% awoodda iska caabinta biyaha mobilkan uu leeyahay waa la hubaa. waa taleefan haysta xilligan aan maanta joogno newska caalamka. haddii aan maalmo ka hor maqlaynay Galaxy S24 Ultra oo ku shaqeeya garaadka macmalka, taleefanka OnePlus wuxuu ka mid yahay taleefanada ugu horeeya oo maanta newska caalamka oo dhan ay ka hadlayaan. maskaxda taleefanka ugu yaraan 256 GB ayuu ka bilaabanayaa, halka RAM-kiisa ugu hooseeyana uu yahay 12 GB. brightness-ka ama iftiinka iyo muuqaalada uu duubaya taleefankan waa taleefan leh brightness-kii ama iftiinkii muuqaal ugu tayada sareeyay, ugu weynaa, ugu baaxadda weynaa, uguna awoodda badnaa oo aan taleefan ka horreeyay hore lagu arag. taleefanada caadiga sida S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max waxay leeyihiin 2000 oo nits oo ah awoodda brightness-ka ama iftiinka taleefanka, halka taleefankan uu leeyahay 4500 oo nits. big difference, farqi weyn ayaa u dhaxeeya. waa dareemaysaa speedka ama xawaaraha taleefankan. waa taleefan ku shaqeeya nidaamka 5G, awood u leh la jaanqaadidda Wi-Fi 7 oo aan insha Allah muuqaal ka soo sameyn doono mustaqbalka. inkasta oo aan mobilkan ka sheekaynay waxyaabo badan uu gooni leeyahay oo aysan taleefanada kala lahayn, ha ilaabin S24 Ultra inuu ku shaqeeyo garaadka macmalka, inuu awood u leeyahay turjumaadda luqadaha xilliga xiriirka tooska iyo waxyaabo badan oo aan kaga soo sheekaynay muuqaalkan. haddii aad danaynayso soo daawo. ugu dambeyn waxaan rajaynayaa muuqaalkan wax uun aadan ogeyn oo xog ah in aad ka faa'iiday.
haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir asxaabtaadana la sii wadaag adiga ayaan su'aal kugu soo celinayaa waxyaabihii ugula yaabka badnaa oo kaa cajab geliyey oo aan kaga sheekaynay mobilkan oo aad ku dooran lahayd maanta haddii dooro lagu yiraahdo maxay ahaayeen commentiga noogu soo qor mahadsanid